Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel, and today we have a 5 minute American English conversation. So si taxadar leh u dhegeyso, repeat after every sentence. So waa conversation yar oo fudud waa laba part 1 iyo part 2. Just conversation kuma waa inaad ka qaadataa jumladaha muhiimka labadan qof dhex marayo, okay? So if you are new here, please don't forget subscribe inaad saarta hayloogin, that helps me a lot. Channelkan wuu cusub yahay, okay? Thank you. Let's get started. Part 1 we are talking about greeting. Two people talking naturally. Laba qof oo si dabiici ah u hadlayaan, then anaga waxaan rabnaa waa jumladaha hadalka bilaabo, bina uu jawaaba. Wuxuu dhahay, hey, how are you doing? Okay, let me ask you, hey, how are you doing? Hadduu qofku dhaho, this is common greeting. So jawaabtu waxay noqonaya, I am doing really well, thank you, how about you? Thank you, how about you? Qofku markuu ku salaamo u mahadceli, kadib haddana salaam asna, how about you? Adigana sidee tahay? Muxuu marka, I'm great, waan fiicanahay, I'm good, I'm fine, waxaa la dhihi kartaa. So I haven't seen you in a long time. Markaasuu wuxuu dhahay, aniga waan fiican, markuu dhahay muddo dheer kuma arkin uu raaciyay marka. So B muxuu jawaabay, I know, waan ogahay, where have you been? Halkay jirto waan ogahay. Wuxuu dhahay marka, I have been really busy with work lately. Maalmahan dambe shaqo ayaan saaid ugu mashquulsanaa, yani aad lately, yani maalmahan dambe ama xiliyadan dambe aad ayaan shaqada ugu mashquulsanaa. I totally understand, waan fahmay gebi ahaanba, yani waan fahmay midda si fiican aan fahmay. Work keeps us all busy, shaqada dhammaanteen ayay busy naga dhigtaa. Exactly, sax. Exactly means yes. If you say yes, always hadaa yes dhahdo, exactly waa isticmaali kartaa. Qof markuu wax exactly yes camal ay ka dhigan tahay. But it is good to see you again. Way fiican tahay inaan mar kale kula kulmo. Same here, sidoo kale, we should catch up soon. Dhawaan ayaan isla soo hadli doonaa, dhawaan ayaan isoo qaban doonaa. So we finish part 1, but then part 2 arkina marka. So as I told you, part 2 ayadana waxay ku saabsan tahay maxaan ka wadaa daily life questions, like interview style. Qofaa su-aal qofku weydiinaya, haddana qofkuna uu jawaaba. Main thing aan u socon waxaa waaye inaan su-aalahan aan qabsano, then aan real life isticmaalno. So before I explain the lesson, adaan ku weydiinaa su-aasha. So tell me, what do you do for work? Adi tell me marka ii sheeg shaqo ahaan maxaa u sameysaa. You have two options to answer this question. Optionka koowaad waxaa waaye, horta adiga maxaad qabataa horta. Adi su-aashaada wuxuu noqonayaa marka, what do you do for living? Yani maxaad qabataa adi, waa nolosha maxaa qabataa, arday maanta mise waa shaqeysaa. So adi marka haddii arday aad waxaa leeyahay I'm student, haddii aad shaqeysana waxaa leeyaysaa I work. So shaqadaada hadda marka su-aashan aniga qusaa marka qof yani shaqeeya camal. So tell me, what do you do for work? Shaqo ahaan maxaa u qabataa. I'm an English teacher, waxaan ahay macalin oo English ah. I teach beginners how to speak English, yani ardayda beginnerka ah waxaa baraa si English ugu hadli lahaayeen. So this is my answer. Laakiin adiga jawaabtaada write in the comment below, so I will read it, anina waa aqrin doonaa jawaabtaada rabaa marka. Kadib haddana muxuu sii weydiiyey, that sounds amazing, taasi waa mid aad u fiican. Okay, waa cajiib camal, amazing. Do you enjoy it? Ma ku raaxaysataa uu dhahay marka. I love it, haa waan ku raaxaystaa ama haa waan jeclahay. Seeing my students improve every day makes me so happy. Inaan arka aniga anaa iska hadlay, ardayga maalin walba horumaraayo waxay iga dhigaysaa inaan aad u farxo. So then haddana muxuu sii b muxuu marka, how long have you been teaching? So marka hadda wuxuu weydiinaya inta aan dad wax baraya. Adi marka let me ask you, adi su-aasha waxay noqonaya, how long have you been learning? Ilaa intii ayaa English baranaysa. So markaas jawaabtaas aad rabto inaad bixiso waxaa dhahaysaa oo keliya, yani waxaa raacaysa structure-ka oo sentence-yaan. You have maho, I have been learning, then inta muddo aad baranaysa aad mishin gareyna oo keliya, for 3 months, for 6 months. So write your sentence in the comment, okay? Anina waa aqrin doonaa, waa fiirina. How long have you been learning English? So jawaabtaada. So marka taan laa weydiiyay, how long have you been teaching? I have been teaching for 3 years now. Yes, 3 sano hadda dad wax baraya, okay?
That is impressive. Taasi waa mid wax ku ool leh. Where do you teach? Halkee wax ka bartaa? I teach online. My students are from all over the world.